ولذلك الإمام مسلم في صحيحه وحكوري عائشة رضي الله عنها وحيتري جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها وحايتي متقبر مسكينة أو وحبان هيسن أو لبا قبضودو يرينا وضاته markaasay baahi baa haysay ilmihii soo kacaysato Caaisha oo la timid Caaisha radiyallahu anha waxay tiri waxaan siiyay saddex xabo oo timira ayaan siiyay waxa ay u heshaa waxay noqdeen saddex xabo oo timir ah ma ahan cantoobo ma ahan 5 xabo ma ahan 10 xabo saddex xabo ayaan u helay oo aan siiyay bayt fa'atat kull wahidatin minhuma tamra baahida haysa daraadeed labadii ilmood oo yaryarka ahaa mid kastoo kamid ah xabad baysiis warafa'at ila fiha tamratan litakulaha xabadii saddexaadna waxay damacday inay cunto kor bay u qaaday hooyadii weeye fastat'amaha ibnataha labadii gabdhood ayaa labadoodii xabba intay cuneen hooyo oo aan wali cunin xabadeedii ayay weydiisteen inay siiso ku dhagay fashaqqat at-tamrata allati kanat turidu an ta'kulaha baynahuma xabadii ay doonaysay inay cunto hooyadaas ayay labadoodii masna u kala goysay oo labadoodii ay siisay ayaduna ay ka qad fa'ajabani sha'nuha baytira Aisha radiyallahu anha waxa aad iyo cajab galiyay arinteeda hooyadaas iyo naxariisteeda iyo daqnashada ku jirta ayaan aad iyo aad ula cajabay ayadoo baahan ayay xabadiina u kala goysay markaas ay nabiga u sheegtay Aisha radiyallahu anha oo tiri haweentaas maanta sidaas guriga timid xaaladeeduna sidaas ay ahayd markaas nabigu wuxuu yiri alayhi salatu wassalaam qad awjaba Allah laha bihima aljanna labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar ugu janno ugu waajibiyay inay janno ilaahay ay gasho aw a'taqaha bihima min an-nar wa shakum min ar-rawi ilaahay ama wuxuu ugu xoreeyay labada gabdhood sababtood ayaa ilaahay naar ugu xoreeyay intaas naxariista ah oo ilmahaas baahan ay u daqnatay ayaa ilaahay janno ugu waajibiyay subhanahu wa ta'ala bahaa'imta iyo xayawaanka in loo naxariisto oo waxa weeyaan loo turo janno ilaahay baa lagu helaa subhanahu wa ta'ala wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalam baynama rajulun yamshi bi tariiq ishtadda alayhi al'atash farisa masaajid ka farisa masaajid ninka socda fariiso ka farisa masaajid xilli uu socdaynin wadada uu marahay nin socdaal ah ayaa waxa ku darnaaday baa nabigu yiri alayhi salatu wasalaam oonkii baa ku darnaaday aad ayuu u haraaday fawajada bi'ran fanazala fashariba thumma kharaj ceel ayuu helay ceelkii buu gudaha u galay biyihii buu ka cabay markuu ka wabxayna waa ka baxay fa idha kalbun yalhath ya'kulu thara min al'atash meeshii waxaaba taagan ceelka banaankiisa ahaa ay baa taagan aygaasina wuxuu cunayaa ciidu cunayaa haraad iyo oon daraadiis ayuu ciidda la cunayaa markaas ninkii hadlay markaas yiri laqad balaga hada alkalba min al'atash mithlu alladhi kana balaga bi wallahi ilaahay baan ku dhaartay aygan waxa taabtay oonka xaqiisa iyo haraadka wixii aniga ay haystay baa asagana haysta waa u daqnaday wuxuu nabigu yiri fanazala albi'ra famala'a khuffa ceelkii buu intuu ku laabtay ayuu wuxuu soo buuxiyay khufkii ayuu soo buuxiyay khufku waxa weeyaan maqaar wax ka samaysan sida sigisaanta oo kala ah fa amsaka fi khufka afkiisa ayuu intuu qabtay ayuu kor oo la soo baxay fasaqa alkalb eygii buu banaanka ugu shubaya maanta oo dhan biyaha yarka meel ugu dul shubahaya ila eygii uu waraabiyay oo uu dharjiyay wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wassalaam fashakara Allah lahu faghfara lahu ilaahay baa ku shukriyay qofkii sidaas sameeyay ilaahayna subhanahu wa ta'ala waa u dambi dhaafay
dembigiisiina ilaahay waa dhaafay waana ku shukriya ilaahay subxaanahu wa tacaala bahaa'imta oo loo naxariisto dadka masaakiinta oo loo turo oo la caawiyo oo la taageero waxaa lagu helaa wax la helo waxa ugu qaalisan waa janno ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dembi dhaaf uu ka horeeyo ilaahay inuu kuu dembi dhaafo jannana uu ku geeyo waxa la raadiyo waxa ugu qaalisan weeye bahaa'imta iyo masaakiinta iyo ilmaha yaryarka iyo agoommaha waxaa lagu raadsadaa janno qofkii ilaahay wax uu siiyey oo dhaama waa inuu xasuusnaadaa mar walba uu masaakiinta u naxariista waxaa ilaahay ku tilmaamay saxaabada nebiga sala allahu calayh wasalam inay ahaadeen dad naxariis badan gaalada ku kakan oo ku ad adag dhexdoodana isku naxariista ilaahay wuxuu yidhi muxamedun rasuulu llah waaladiina macahu ashiddaa'u cala alkufaar ruxamaa'u baynahum gaalada way ku ad adag yihiin dhexdoodana waa dad isku naxariisto isku tura weeye waxa aan loo naxariisanahay waa gaalada xarbiyiinta ah gaalka dagaalamaya oo muslimiinta la dagaalamaya asaga waa la dilayaa midka murtadka oo diinta islaamka ka ridooba muslimka ahaa asaga waa la dilayaa midka taariku salaadka asaga la waraabin mahayo salaada ilaahay ka tegey xayawaanka mu'diga ah oo waxa weeyaan in la dilo la is-amray asaga waa la dilayaa waxba la waraabin mayo waa la dilayaa xayawaanka la amray in loo naxariisto iyo khalqiga intiisa kale bahaa'imta kale iyo dadka intaba waa in qofku u naxariistaa oo u turaa raxmaddu laba nuuc weeye mid waxa weeyaan qofkaaba ilaahay ku abuuray oo dadka ayaaba kala duwanba qof baa ilaahay wuxuu ku abuuray qalbigiisu inuu daqnado oo naxariisto qofna qalbigiisu waxa weeyaan daqnasho iyo naxariis ma leh middaasi waa abuuris ilaahay baa ku abuuray raxmaddaas qalbigiisa taalla qofkan waa fadiilo ilaahay uu siiyey midna waa muktasab oo qofku wuu kasbanayaa oo qofku waa inuu ogaadaa adillada ku soo aroorta in khalqiga loo naxariisto iyo turitaanka xayawaanka loo turahayo iyo ixsaanka loo samaynayo masaakiinta fadaa'isha ka dhalanaysa markuu ogaado haddii xataa qalbigiisu markii hore uusan daqnasho lahayn waa inuu naftiisa ku tarabiyeeyaa oo isbaraa inuu waxa weeyaan u naxariisto masaakiinta inuu u naxariisto bishaan barakaysan ee inoogu soo socota waxyaalaha lagu soo dhoweeyo waaweyn waxaa ka mid ahoo wanaagsan qofku inuu sadaqo sii bixiyo inuu masaakiinta u naxariisto si ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurihiisa ugu fududeeyo si ilaahay ugu naxariisto si ilaahay jannadiisu ugu helo waa inuu qofku khalqiga ilaahay u naxariistaa waxaa lagu raadiyaa caafimaad masaakiinta oo loo naxariista waxaa lagu raadiyaa caafimaad waxaa lagu raadiyaa janno waxaa lagu raadiyaa dembi dhaaf waxaa lagu raadiyaa ilaahay ummadda inuu madar iyo khayr uu siiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto waa ka nebigu yidhi irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi الsamaa u naxariista kuwa dhulka jooga ilaahay baa subxaanahu wa tacaala idiin naxariisanahaya alraaximuuna yarxamuhum الraxmaan kuwa naxariista ilaahay baa u naxariisanaya bal u naxariista khalqiga ilaahay oo jarrib oo isbar oo waxa weeyaan ka warqab dariskaaga qaraabadaada saaxiibbadaada dadka duruufaysan masaakiinta waa in loo naxariistaa si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu naxariisto waa inuu ogaadaa qofka mu'minka raxmadda ilaahay shay kasta inay ka waasic tahay waa ka ilaahay odhanaya waraxmatii wasicat kulla shay raxmadda ilaahay uu khalqigiisa asagu u naxariisanahayo waxay ka weynin badan tahay hooyadu ilmaha ay dhashay sida ay ugu daqnanayso oo ugu naxariisanayso ayaa midda ilaahay ka weynin badan tahay walidaalika imaamu albukhaari iyo muslim waxay wariyeen cumar ibnu اlkhadaab radia allaahu canh ayaa wuxuu yidhi nebiga waxaa loo keenay maxaabiistii laga soo qabtay reer hawaasin dadkii la soo qabtay
oo addoommada ahaa oo faraha badnaa oo la keenay ayaa waxaa ka mid ahaa haweeney markaas waxa weeyaan ilmo yar ku irmaanayd ilmihii yarka ahaana weysay naasaheediina caanihii ay ku soo istaageen markaasay waxay dhex ordaysaa dadkii faraha badnaa ayay waxay ka raadinaysaa ilmo ay nuujiso cunugii yaroo ay aragtaba way nuujinaysaa ilaa markii dambe ilmaheedii ay heshay markaasay ku boodday oo dhabta saartay markay sidaa dhabta u saartayna naaskay u daysay nebigu markuu arkay sala allahu calayhi wasalam hooyada intaa ordaysay oo cunugeedii raadinaysay markay heshana sidaa iskugu duubtay oo ku dhegtay ayuu saxaabada su'aal weydiiyo oo wuxuu yidhi aturawna haadihi taarixatan waladaha fi nnaar ma u malaynaysaani middaan ilmaha yarka ah oo sidaa ay u baadigoobaysay oo naaska hadda ay u daynayso dhabta ay ku hayso intay saa u qabata dab inay ku dhex tuuri lahayd ma u malaynaysaan markaasaa waxaa nidhi buu yidhi cumar ibnu khadaab radia allaahu canhu maya wax ka suurtoobi kara ma ahan markaasaa nebigu intuu dhaartay buu wuxuu yidhi allaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha lafdiga kale lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha ilaahay baa addoommadiisa oga naxariis badan hooyadaas aad arkaysaan ee sidaa waxa weeye ilmaha yarka u daqnanaysa oo sidaa ugu naxariisanaysa ilaahay baa addoommadiisa oga naxariis badan qofka muslimkaah waa inuu ogaadaa raxmadda ilaahay waxaa la yeelay 100 qaybood ayaa ilaahay ka dhigay wuxuu nebigu yidhi calayhi الصalaaةu wasalaam jacala allaahu الraxmata fii 100 juzءin raxmadda ilaahay wuxuu yeelay 100 qaybood faamsaka cindahu 99 juz'a ilaahay agtiisa wuxuu ku baaqi yeelay oo haystaa 99 waأnzala fi اlardi juz'an waaxidan hal qaybna waxaa loo soo dejiyey dhulka ayaa la keenay 99kaas waxaa loogu naxariisanayaa aakhiro ahlu jannaha hal midna adduunkaa la keenay bal middaasi raxmaddaas keligeed ah sida ay waasicu tahay wuxuu nebigu yidhi famin dalika aljuz'i tataraaxamu alkhalqu halkaa qayb oo keli ah ayaa khalqigoo dhan isugu naxariisanayaan xataa tarfaca alfarasu xaafirahaa can waladiha khashyata an tusiibah ilaa farasku qoobkiisa uu ka ilaaliyo ilmaha yarkaahoo uu dhalay oo hoos yaalla ayuu qoobkiisa ka ilaalinayaa baqid uu ka baqahayo qoobka hadduu ku joojiyo inuu dilo uu ka baqahayo halkii xabbo ayaa raxmaddiisu waxay gaartay in waxa weeyaan xayawaanku ilmaha yarkaa uu dhalay uu u naxariisto oo qoobka ka ilaaliyo inuu ku dul joojiyo waxaa kaloo muhima in la ogaado qofka muslimka ah uma bannaana inuu marnaba raxmadda ilaahay ka quusto oo waxa weeyaan dembi kastoo ka dhaca waa inuunan raxmadda ilaahay marnaba ka quusan wuxuu ilaahay leeyahay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah ina allaha yagfiru الdunuuba jamiica inahu huwa algafuur الraxiim addoommadayda xadgudbow ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina ilaahay dembiyada dhammaantood waa dhaafaa waana gafuur raxiim qofka dembi kastoo ka dhaca hadduu ilaahay u laabto subxaanahu wa tacaala laa shaka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u dhaafaya asbaabihii toobadkeenka hadduu la yimaado dembigaasi si kasta ha u weynaado ilaahay wuu dhaafaya qof nimcadaas ilaahay oo raxmaddaas dhaafitaanka ah qof waxa weeyaan loo diidahayo oo laga ilaalinayana ma jirto walidaalika nebiga calayhi الصalaaةu wasalaam
nin reer baadiya ayaa salaada la tukaday markaasuu salaada markuu ducaysanayo wuxuu ku soo daray allaahumma arxamnii wa muxammadan walaa tarxam macana axadan ilaahow aniga ii naxariiso muxammadna u naxariiso cid kalena ilaahu ha u naxariisan markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam laqad xajarta waasican raxmad ilaahay iyo dembi dhaaf ilaahay oo waasica ayaad ku koobtay adiga naftaada iyo aniga naftayda raxmad ilaahay iyo dhaafitaanka ilaahay waa waasic ummadoo dhan inaad u ducaysid bay ahayd ma ahayn inaad ku koobtid adiga iyo aniga maynan ahayn raxmadda loo naxariista khalqiga waxaa ugu sii fadli badan dadka ducafada ah oo tabarta daran ilmaha yaryarka ah bahaa'imta iyo xayawaanka masaakiinta ayaa aad iyo aad ugu sii fadli badan